asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo mowduuca waxaan uga hadlaynaa dagaalka saakadii hore ka bilowday dalka Ukraine. Xilli hore oo saaka ahayd waxaa warbaahinta caalamka qabsaday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ku dhawaaqay in uu qaadayo special operation waxa uu ugu yeeray kaasi oo ah howlgal khaas ah oo lagu beegsanayo qaybo ka mid ah dalka Ukraine. Ukraine waxay hore uga tirsanaan jirtay midowgii Soviyetka balse 1991 markii uu burburay midowgii Soviyeetku waxa Ukraine noqotay dal gaar ah. Ukraine waxa ay ku jirtaa mid ka mid ah dalalka adduunka ugu awoodda badan balse marka la barbar dhigo Russia Ukraine waxay noqonaysaa waxaan caata ah oo orgi weyn la dirinayo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu aaminsan yahay si aad ugu aaminsan yahay in dalkan yar ee Ukraine uu ka mid yahay amaba uu yahay qayb ka mid ah dalkaas Ruushka. Horey waxaa dalkan looga jaray ama uu dalka Ruushku u qabsaday dalkii la oran jiray Crimea. sidoo kale waxa uu haatan u xidhxidhanaya inuu qabsado qaybo ka mid ah dalkaasi. Dagaalkani waxa uu yeelan doonaa sida ay khubaradu tilmaamayaan saameyn farq badan. Qof kasta oo adduunka ku nool waxa uu ku reebi doonaa saameynta ugu weyn ee dagaalka reebi doona waxaa ka mid ah in uu sare u kici doono qiimaha shidaalka la kala siisto iyadoo uu qiimuhu joogay $94 barmiilkii maalnimadii shalay ahayd kadib dagaalkii saaka qarxana uu gaaray shidaalku ilaa $114 taas oo ka dhigay in qof kasta oo Soomaaliya oo isticmaali jiray gaadiid ama waxa weeye isticmaali jiray gaadiidka lagu safro dalka qaybihiisa kala gedisan ama magaalooyinka dhexdooda uu saameyn ku yeelan doono sicirka lagu fuulo tusaale ahaan bajaajta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Vladimir Putin ayaa waxa uu goor hore oo saaka ahayd soo saaray war-saxaafadeed waxa uu ku baaqay in la isugu yimaado shir degdeg oo yeelanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sidoo kaleetana waxaa shir degdeg loo qorsheeyay inay yeeshaan golaha sare ee gaashaanbuurta NATO. sidoo kaleetana madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay in ay cunaqabateyn ba'an saari doonaan dalka Ruushka isla markaasina ay u ducayn doonaan dalka Ukraine. wixii halkaas ka soo kordha halkan ayaa kala socon doontaa saaxiibayaal. wararkii ugu dambeeyay ku saabsan dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo arrimo kale oo xiiso badan waxaad kala socon kartaa halkan oo 5 daqiiqo ah. mahadsanidin.